Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin aad baan idin salaamayaa maalin wanaagsan insha Allah maanta waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo videoga aad dhammaantiin iga wada codsateen ee ahaa notionkayga sida uu diyaarsan yahay iyo qaabku yahay haddaan ka bilaabo taa horeysa waxa weeyaan master calendarka baad ku ogaanaysid taa ku fogaan maayo oo qof kasta oo iska garanaya calendarka ma fahanteen marka halkaas waxaad gashan kartaa waxaad maalintaa qabanaysid sidoo kale inaad trade ka qaadatay oo kale noocaas ka labaad waxaa weeyaan trading planka waa noocaas kolley waxna waad ka bedeli kartaa waxna waad ku darsan kartaa trading plankaaga ku xiran tahay markaad rabtid inaad wax ka bedeshidna kaliya waxaad odhanaysaa enter kadibna waxaad rabtaa waad ka bedeli kartaa taa haddana halkaa kaga nimaadno tan ku xigta waxa weeyaan 90 day plan marka 90 day plan waxaad gashan kartaa waxyaabahaad rabtid inaad sameysid sida waxyaabaha aad rabtid inaad noqotid waxyaabaha aad rabtid inaad haysatid waxyaabaha wax noocaas baad gashan kartaa sida idinka muuqata ta u horeysa waxa weeyaan 10 shay aad rabtid inaad noqoto tusaale ahaan quarter-ka u horeeya waxaan rabaa inaan noqdo oo kale haddaan imika taa ku buuxiyo oo horeysa waxaan rabaa inaan noqdo aabe fiican oo kale haddaan ka dhigo idinku waxaad doontaa baad ka dhigan kartaan waxyaabaha aad rabtid inaad quarter-ka hore sanadka aad fulisid waad gashanaysaa halkaas waad gashanaysaa sidoo kale quarter-ka dadka aan fahansanin waxa weeyaan sanadkii waxaa loo qaybiyaa 4 quarter oo 3 biloodba hal quarter baa la isku dhahaa fahantay marka sidaa weeyaan marka quarter-ka u horeeya waxaan rabaa inaan noqdo aabe fiican sida tan ku xigta 10 shay kale waxa weeyaan 10 shay aad rabtid inaad sameyso sanadka quarter-ka hore tusaalaha hore haddaan usoo qaato waxa weeyaan waxaan rabaa inaan xirfadeyda forex aad u ballaariyo kale aad ka dhigi kartaa aad u wanaajiyo aan xirfadda forex si fiican u barto dadka dee waxbarashada ku jira laakiin qof kale waxaad kale ka dhigan kartaa wada doonsid waxaan rabaa inaan koob challenge oo intaas aan gudbiyo waxaan rabaa inaan akoon noocaas haysto waxaad doontaa waad gashan kartaa tan kalena waxa weeyaan 10 shay aad rabto inaad haysato 10 shay oo laazim inaad haysatid sanadka quarter-ka horeysa waxaa ka mid ah aad ku qoran kartaa oo kale aan akoon 100,000 ayaan rabaa inaan haysto challenge ayaan ka dhigay laakiin waxaad rabtaa waad ka dhigan kartaa sida ujeedaan tusaale waxaan soo qaatay waxaan ka dhigay ta horeysa waa inaan 100,000 akoonaan haystaa intaan quarter-ka koobaad ee sanadkan dhamaanin sidoo kale halkaa tigtaasna waxaad saari kartaa saddexda top 3 saddexda masalo ee aadka kugu culus inaad sanadkan sameysid anigu hal tusaale ka soo qaatay laakiin adigu dhowr tusaale ka soo qaadan kartaa fahantay marka dhowr waxbaad qori kartaa 10 waxbaad qori kartaa marka saddexda ugu muhiimsan ayaad kala soo baxaysaa laakiin halkan baa khaldan halkan aan saxo 2023 weeyaan ayaa ka dhigay markii hore aan sameynayay error weeyaan marka aniga hadda bedelay 2023 quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 marka sanadka 2023 saas uu ku dhan yahay fahantay kule quarter 1 waa la soo dhaafay sidoo kale quarter 2 giina waa la soo dhaafay quarter 3 hadda lagu jira 2023 fahantay marka saas insha Allah ina saa la socon doontaa marjiiniya taas saddexaad taa afraad oo sidoo kale waxa weeyaan training journal-ka waa ta ugu muhiimsan ee dadka u badan ay soo weydiinayaan sidoo kale dadkuna aad u rabaan halkan waxaa ku jira currency pairs-ka dhammaantood oo si fiican u diyaariyay ma fahantay marka halkaa waxaad gashan kartaa pairs-ka doonaysid inaad trade-ka ka gashid marka trade journal-ka weeyaan haddaan hadda tusaale ahaan aan u bixiyo GBP USD baan pairs-ka soo xushay waxaan u galay loan ama buy baan u galay time-ka aad gashay taariikhda gashay halkaas gelinaysaa stop loss-ka intaad ka dhigtay 12 bib baan ka dhigay setup-ka keebaad ku gashay halkaa waad bedeli kartaa waxaad doontaa waad ka dhigan kartaa intaa ma fahantay marka adiga bedelashada waxaad doontaa waad ka dhiganaysaa setup-yada aan ku galay waa liquidity order block dadkaan istiraatiijiyada smart money isticmaalin sidoo kale way bedelan karaan oo edit-kaas way edit garaysan karaan halkaan liquidity-kaas oo kale ay ku bedelan karaan waxay ku galaan iyagu fahantay marka result-iga aan ka helay haddaan hadda yiraahdo -1 loss wuu soo qorayaa haddaan yiraahdo +1 wuxuu soo qorayaa win haddaan laakiin labadaba baabiyo break even buu soo qorayaa hadda halka ka aragtaan
marka 1% baan ka dhigay inaan trade-ka ka helay win buu ii soo qoray. Halkaa waxaad gashanaysaa lacagtaad gashay sawirkeedaad gashanaysaa. Haddaan imika searching gareeyo, haddaan hadda searching gareeyo lacag ahaan tusaale idinku siiyo, halkaas upload-kan waad ka gelin kartaa, sidoo kale linkigan waad ka gelin kartaa. Ma fahamtay? Upload-ka waa inaad sawirka soo saartaa, haddaad linkiga rabtidna waa inaad linkiga soo copy gareysaa. Marka labadaa kule waa la fahmaya, dadka TradingView-ga isticmaala way fahmayaan. Hadda waxaan soo copy gareeyay linkigan, soo copy gareeyay, isagaa fudud labada. Marka first image waxa weeyaan image-ka hore markaad trade-ka aad fulin aad ka qaaday, ka dambana waxa weeyaan markii trade-ka wuxuu ku dhamaaday loss ama win wuxuu ku dhamaaday. Markaad linkiga hadda ku dhufato taa sawirka toos buu kugu soo saaraya. Imika waxaad isweydiinaysaan trade-ka haddaan close dhaho oo calaamadda tigta aan saaro close-ta, 3 buu geli doonaa. 3daa wuxuu geli doonaa anaa idin kala tusi doonaa sababtahay. Wuxuu gelayaa win-ka saad u jeedaan oo win baa 1% faa'iido baan ka helay baan halkaa ku soo qoray. Marka loss-kana geli maayo, break even-kana geli maayo, laakiin win-kuu gelayaa saad u jeedaan. Oo ka win-kii buu galay, qaybtii win-kuu galay, winners-kuu galay. Taa lacagtii imika bixinay GBPUSD long baynu galnay, high probability bay ahayd. Ma fahamtay? Taa waxaynu kusoo qorno dhan. Haddana imika mid loss oo kale aan tusaale ku bixiyo, waxaan soo qaadanayaa USD CAD oo kale, USD CAD oo kale aan iyada soo qaadanayaa. Marka waxaan ku qorayaa long baan galay iyadana sidoo kale time-kan waa kaas halkaas ka gelinaysaa. Time-ku waa si automatic ah xilliga taagan tahay, marka xilliga taagan tahay wuu kugu bahlanaya. Ma fahamtay? Laakiin halkaa waad ka edit gareyn kartaa, waad ka bedeli kartaa. Sidoo kale haddaad include time-ka haddaad sii taabatid, waa time-ka ka baxdayna wuu kusii hoos dhigayaa. Marka halkaas ka buuxinaysaa. Sidoo kale stop loss-kana 12 pip ka soo qaad. 1 hour setup baan ku galay. High probability trade-kaasi ahaa, watch list-gii ku jiray horaan diyaarsaday. Setup-yadan ku qaatayna saas ay wada ahaayeen. Dadkan smart money isticmaalina waad edit gareysanaysaan insha Allah. Sidoo kale result-ga haddaan geeyo, result-ga waxaan ka dhigo -1. Saa u jeedaan automatically loss buu igu soo qoraya halkaas. Marka trade-ka haddaan close dhaho, automatically wuxuu gelayaa qaybta loss-ka uu gelayaa. Ma fahamtay? Marka qaybta loss-ku galay saad u jeedaan taa USD CAD lacagtii imika buuxino taas. Insha Allah cid aan fahmin inaan jirin waan rajeynaya. Insha Allah si fiican baan idinku sharaxay. Sidoo kale cid aan fahmina video-ga mar labaad ku ceshan kartaa. Waxyaabahan soo maray oo dhan baad soo mari kartaa. Ma fahamtay? Marka haddaad rabtid trade-yadii aad gashay oo dhan loss, break even, win wixii oo dhan haddaad rabtid all trades halkaas ku dhufanaysaa. Ma fahamtay? Marka halkaas kuu soo saaraya wixii oo dhan dhammaantood. Halkaa haddaan kaga yimaado, sidoo kale backtesting-kiina waa kan. Backtesting-ka isaga sidii kii hore aad u gelgelinayso baad u gelgelinaysaa oo waxba kuma kala duwana weyn. Marka insha Allah taa halkaas kaga imanaya iyada oo kusii fogaan maayo. Saa u jeedaan buyers-kii halkan bay kugu wada jiraan dhammaantood iyagoo wada diyaarsan. Lacagta eurooyinka, lacagta GBP-yada dhammaantood iyagoo wada diyaarsan. Marka backtesting-ka iyada waan ka dhaafi doonaa sababtoo ah video-ga aad buu u dheeraanaya haddaan iyadana sii faahfaahiyo oo tii hore isku mid yihiin. Marka tan haddaan imaado self review-ga, waan halkan imaado. Halkan waa waxyaabaha aad self-gaaga ama naftaada aad buuxinaysid oo naftaada aad la xisaabtamaysid. Ma fahamtay? Trade-yadii aan qaatay oo kale halkaas aad gelinaysaa. Marka haddaad trade-yadii aan qaatay halkan waad ka gelin kartaa. Sidoo kale labadii lacagood hadda soo buuxinay si automatically way noogu galeen. Ma fahamtay? Marka trade-yadii aan qaatay halkaas ay kugu wada galayaan. Trade-yadii aan seegay miss trades-ka halkan waad ka gelin kartaa. Meel kalena waa laga geliyaa oo xagga video-ga qaybta dambe aan idinku sharxi doonaa. Iyadana xagga laga gelinayo miss trades-ka ama trade-yada aanad seegtay. Marka tan ku xigtayna iyadana waxa weeyaan inteen leg backtesting baan sameeyay bishan. Ta kale ku soo xigtay iyadana waxa weeyaan maxaan ku guuleystay bishan. Oo bishan waxyaabahan ku guuleystay ama trades-ka ha noqoto ama naftayda inaan control ha noqoto. Inta qaybta labaad haddii nimaadno waxaa ta koobaad kugu jirta waxa weeyaan maxay yihiin khasaaraha ku saabsan ganacsiga aan qaatay bishan. Maxaa khasaaraha ii keenay, maxay baan lose gareeyay, rule-kii baan ka tegay. Sidoo kale trade-yada faa'iido kugu dhacay, maxay yihiin faa'iidooyin ku saabsan ganacsiga bishan qaatay. Iyadana halkaas ku qoraysaa. Sideen dareemayaa anshaxa shaqadeeda ficilkayga muwaafaqsan yahay hamigayga iyo yoolkayga. Halkaan iyadana waad buuxinaysaa iyo waxa haddii aad risk management-igu aanad ka dhisnayn oo kale si fiican baad u buuxinaysaa.
dhammaantiin Soomaali baan idinku wada turjumay saa ujeedaan Soomaali baan idinku wada turjumay iyadoo Ingiriisina ku qorantay iyadoo Soomaalina ku qoran tahay oo qofkii wax akhrin kara uu fahmaya ma fahanteen markaas aan video inoogu dheeraan tan waan ka gudbi doonaa oo waxaan u gudbi doonaa qaybteena xigta oo insha Allah ah Mr Traderska sidii hadda taan idin sheegay halkii horena waad ka gelin kartaa Mr Traderska halkan waad ka gelin kartaa trader misgareysay halkan baad ka gelinaysaa sidii aad bears ku soo xulinaysaa hadda toala soo xulanaysaa maxaad ku misgareysay I was sleeping waad oran kartaa sidoo kale my forecasting kuma jirna martiina diyaarsaday kuma jirin fear of losing waxaan ka baqayaa inaan traderka lose gareeyo waxyaabaha aad ku lacagta ay kugu dhaaftay baad halkaa ku qoraysaa sidoo kale sawirkan waad gelinaysaa tala saddexaad haddaan tago in waa buugyada aad akhriday iyo buugyada aad weli akhrin iyo buugyada aad rabtid inaad akhridid iyo buugyada aad dhammaysay akhrintooda iyo buugyada kuu socda inta dhammaantood waad gelinaysaa halkan baad gelinaysaa oo waa nolol maalmeedkaaga oo dhan weeyaan nooshinkani ku saabsan yihiin fahanteen kaliya kuma saabsana trading kaliya kuma saabsana nolol maalmeedkaaga oo dhan ku saabsan marka inaad saa fahantaan baan rajeynayaa haddaan halkaa kaga imaado finishing bookska aad dhammaystay akhrintooda waa tan qaybtan baad iyadana qaybtan bay ku gelayaan iminka labadaa book baan dhameeyey inaan akhriyo bishan marka labadii book halkaasaan gashaday idinkoo saas kale aan rajeynaya inaad u gashan doontaan marka halkan baan kaga iman doonaa iyadana bookska qaybta bookska iyadana halkaasaan kaga iman doonaa videona gabagabo insha Allah ku dhow yahay asxaabta dhammaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen nooshinkaas oo insha Allah koobigiisana waxaan soo dhigi doonaa telegramkaygana wuxuu yaalaa linkiga descriptionka qofka dee telegramkayga aan ku jirin baan sheegayaa qof ku jirina isagu waabuu halkaasuu kasoo raacayba videoga oo insha Allah halkaas ka heli doonaa linkiga dhammaantiin khayr baan idin rajeynayaa asxaabta insha Allah wiig wanaagsan baan idin rajeynayaa aadna waa idin salaamayaa dhammaantiin maca salaama